iyadoo shirar kala duwan oo qasdigoodu ahaa ka qayb qaadashada qaaraanka dhismaha jidka Burco iyo Ceergaabo ay ka dhaceen dalka Ingiriiska isla markaana ay halka ku sugan yihiin wafti ka socda guddiga dhismaha wadada loo xil saaray ayaa wadanka Norway waxa ka socda maalmahanba qabanqaabada shir ballaaran oo lagaga hadli doono sidii ay jariirada Somaliland ee dalkani cudud dhaqaale ugu biirin lahayd dadaalka ay xukuumaddu bilowday ee lagu beegsanayo isu furista gobolada dalka ee jid la'aantu kala xiriirtay shirkaas oo ay ka qayb gali doonaan wafti ka socda guddi madaxweynuhu u magacaabay hogaaminta dhismaha jidka Burco iyo Ceergaabo qabanqaabadiisa waxa ka hadlay wakiilka Somaliland ee Norway Sulub Xuseen iyo gudoomiyaha jaaliyadda Cabdirashiid Muuse waxaana labadooduba tibaaxeen inuu si fiican u socdo diyaar garowga shirkan oo ay sheegeen in loo baahan yahay inuu noqdo mid aan loo kala xarin si ay reer Norway ay qaataan mas'uuliyadda kaalinta kaga beegan dhismaha jidka una dhinac joogsadaan jaaliyadaha kale ee deeqsinimada u muujiyay hirgelinta dhismaha jidka Ceergaabo iyo Burco runtii waxaan ku bilownay in aan horta sameeyno guddi farsamaha laakiin marka ay yimaadaan aanu shirka qabsano ayaan ku talagalnay inaanu markaa guddi u saarno sidii hawshii loo dhammaystiri lahaa sidaad ka warhaysid wadanku waa wadan ballaaran oo dadku dee meel ma wada joogaan si ma garanaysaa loo wada gaadho waa inaanu guddi ballaaran oo gobolada ka soo jeeda aan inta badan dalaasmaarka waqtigii qaboobaha in aanu markaa halkaas ka wada helno oo aanu markaa annaguna ka tashanno sidii aanu arintaa u hirgelin lahayn Rashiid Muuse Ismaaciil gudoomiye jaaliyadda tahay ka jaaliyad ahaan dadka loo imanayaan oo adiga maxaa ilaa hadda aad qabateen dhinac sidan imka uu safiirku ku sheegay guddida farsamo baa imka jirta oo hawlaha u sii gogol xaadaysa gogol xaadka ka bacdi waxa weeyaan sidii la nooga bartay reer Norway waxaan filayaa inaynu safka hore ka geli doono hawshan Ceergaabo aadna waan ugu rajaynahay sidii looga bartay halkan in ay gunta dhiisha isaga dhigaan dadkuna waa is yaqaanaan oo cidda hawshan oo kale loo dirayana waa noo sii calaamadsan yihiin marka waxa weeyaan waxaynu sugaynaa waxa weeyaan qoladii oo inoo waranta hawshu intay leeg tahay